Asbuucii ugu dambeeyay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah xarigga maayarka Istanbul, mid ka mid ah hogaamiyaha ugu tunka weyn ee xisbiga mucaaradka CHP, Ekrem İmamoğlu oo ah mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda Erdogan. Sidoo kale waxa uu qayb ka yahay xisbiga mucaaradka CHP. Arday iyo shacab oo kumanaan kun gaaraya oo isugu soo baxay banaanyada magaalooyin waaweyn ee ku yaala Turkiga. Waqti yaraysi anigaan kula wadaagi doono xaaladda qasan ee Turkiga iyo sheekada sida ay ku bilowdeen. Haddaba daawade inta aanan muuqaalkeena ama mawduuceena u gudagalin, kanaalkeena YouTube-kan waxaan kusoo gudbinaa warbixinada iyo dhacdooyinka caalamka ka dhaca, sidoo kale taariikhaha kama marna dhiirigelinta dhalinyarta. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cariif, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto. Haddii aad horey noola joogtaa inaad videogan like dhahdaan, aad iyo aad ay u mahadsantihiin. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. duqa magaalada Istanbul ahna hogaanka xisbiga mucaaradka CHP loo yaqaano waxa uu tartan xooggan aan caadi ahayn kula jiray madaxweyne Erdogan. Maalmihii ugu dambeeyay mucaaradka ayaa loolan iyo dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn ka waday magaalooyinka waaweyn ee Turkiga. Xisbiga talada haya ee loo yaqaano AKP ayaa dareemay ciriiri daran oo ka dhan ah siyaasadda. Haddaba Ekrem İmamoğlu oo ka mid ah xisbiga mucaaradka CHP ayaa ku guuleystay 2 jeer u tartamay maayarka magaalada Istanbul, 2 jeerbana uu ku guuleystay, taas oo dharbaaxo culus ku noqotay xisbiga talada haya ee AKP. Markaad u fiirsato wadadan hadda uu maayarka magaalada Istanbul haya waa isla wadadii ee Erdogan kusoo kaambeyn gareeyay inta uu madaxweyne noqon ka hor. Yacni haddii aan kusii faahfaahiyo, Erdogan dhowr jeer ayuu soo noqday maayarka magaalada Istanbul, kadibna waxa uu ugu sii talaabay madaxweyne. Ekrem İmamoğlu'na isla wadadii ayuu qaaday, hadda uu 2 jeer noqday maayarka magaalada Istanbul. Waxa uu rabaa in uu doorashada 2027 in uu madaxtinimo isu soo sharaxo. Maalmaha hore oo waxaa jirtay laga bartaa laga badiyaa, yacni siyaasadda hadda uu wato maayarka magaalada Istanbul waa siyaasadii hore ee Erdogan. Inkastoo hadda weli oo madaxweyne noqon, madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa AKP ayaa u arkaa İmamoğlu in uu yahay ninka kaliya ee maanta kula tartami kara jagada madaxtinimo. Xarigga duqa magaalada Istanbul ayaa keenay caro xooggan oo ka dhex dhalisay taageerayaashiisa iyo xisbigiisa mucaaradka CHP. Mucaaradka xisbiga CHP waxa ay leeyihiin Erdogan marka uu arkay in aan kaga adkaanay siyaasadda, hadeertan waxa uu bilaabay in uu adeegsado awood si uu noo aamusiyo. Sidoo kale videogan waxaan idinkula wadaagi doonaa fariintii ugu dambeysay ee maayarka Istanbul ka hor inta aan la xirin. Yacni askartii xiri lahayd ayaa waxay joogtay gurigiisa hoostiisa markuu fariintan kusoo boosti gareynaya bartiisa Instagramka. Marka hore waan ka xumahay in aan sidaan dhaho. Dad yar oo damiir laawayaal ah ayaa isku dayaya in ay afduubtaan rabitaanka ummadayda. Ciidamada ammaanka ee dalkayga, gaar ahaan booliska aan jeclahay, waxay u adeegsadeen shaar shakhsi ah si ay u handadaan maayarka magaalada Istanbul oo mas'uul ka ah 16 milyan oo qofood. Boqolaal boolis ah ayaa waxaa la soo dhoobay albaabka gurigayga. Waxaan wajahaynaa dulmi aad u weyn, laakiin marnaba ma niyad jabi doono. Waxaan rabaa inaad ogaataan in aan idin jeclahay dhammaantiina. Dhammaan ummaduna ha ogaato in aan sii wadi doono la dagaalanka qofkaas oo u adeegsanayo caqliga dadka danihiisa gaarka ah. Markaana eedeymaha loo haysto duqa magaalada Istanbul: 1. in uu musuqmaasuq ka sameeyay shaqada loo idmaday. 2. in xiriir hoosaad uu la lahaa xisbi ka tirsan PKK oo ah xisbi hoos yimaada Kurdistaanka, dadka Turkidana ay u yaqaanaan xisbi argagixiso ah. Taasina ay qayb ka tahay in duqa magaalada Istanbul oo wada shaqeyn hoosaad uu la lahaa xisbigaasi. 3. in jaamacadda Istanbul ay kala laaban doonto certificate-kiisa ama shahaadada jaamacadda ee ay siiyeen. Inkastoo weli hadeertan aan shahaadada lagala laabanin,
laakiin haddii ay dhacdo in shahaadada lagala laabta waxa uu gebi ahaanba ka hari doonaa musharax madaxtinimo ee 2027. Sharciga iyo dastuurka dalka Turkiga ayaa dhigaya in qofka rabo inuu isu soo sharaxo madaxtinimo inuu haystaa shahaado jaamacadeed. Dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin Erdogan waxa uu adeegsanayaa weji walba si uu isaga horleexiyo ninkan. Kadib xariga maayarka Istanbul waxa uu dhaliyay mudaharaadyo badan oo ka dhacay magaalooyin badan oo tobaneeyo kor u dhaafaya. yacni shacabka mucaaradka ah dhammaantood ma wada aha dad taageersan xisbiga mucaaradka Jaabe. Xitaa qaar badan oo ka mid ah shacabka Turkida sababta ay mudaharaadayaan intooda badan waxa ay ku sheegeen marnaba raali iskagama nihin in qof lagu xadgudba. Xaqa, sharciga iyo cadaaladda ayaan u taagannahay. Waa sida ay sheegeen qaar badan oo ka mid ah shacabka mudaharaadaya iyaga oo sheegay in ay taageero u ahayn maayarka duqa magaalada Istanbul oo la xiray laakiin ay diidan yihiin xadgudubka iyo sharci darrada. Marka laga yimaado siyaasadda ka dhexeysa labada xisbi, haddana shacabku waxa ay diidan yihiin in sifo sharci darro ah lagu maago qof. yacni waxa ay leeyihiin maanta ka shacab ahaan haddii aan iska aamusno ee aan guryaheena iska joogno dhibka intaa way kasii badanee maalinta xigtana anaga ayay nagu imaaneen. Haddii ay jiraan dembiyo sax ah oo lagu eedeynayo maxkamadda ha la soo hortaago, sidoo kale sharciga waxa uu qabana ha lagu qaado. laakiin maayarka magaalo dhan oo 16 milyan oo dad ku sugan yihiin in maalin cad gurigiisa inta loogu tago layska xirto wax macquul ah ma ahan ay leeyihiin shacabka mudaharaadaya ee reer Turki. Muuqaalkeena maanta iyo macluumaadka cusub ee Turkiga waa inoo halkaa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Ha ilaawin inaad like saarto sidoo kale subscribe dhacdo. muuqaalka xiga inta aan ku kulmi doono. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.